magaciisa saddexani wuxuu ahaa Muammar Maxamed Cabdisalaam Qadaafi. Wuxuu ahaa siyaasi reer Liibiya ah, wuxuuna xukumayay in ka badan 42 sannadood Liibiya. Wuxuu dhashay 7 Juun 1942. Wuxuu ku dhashay tuulo la dhaho Jahannamo oo ka tirsan gobolka Sirrat. Reerkiisu waxay ahaayeen reer baadiye. Sidee buu ku samayn karaa dawlad? Wiil aabihii ahaa beeraley isna ku soo barbaaray beerta aabihii. Laakiin shakhsigan aan ka hadlayno taariikhdiisa wuxuu awooday inuu sameeyo dawlad quwad leh. Aan idin kala baxo madaxweyne Muammar al-Qadaafi iyo muuqaalkeena maanta. Bismillahirrahmanirrahim. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Soo dhawaada saaxiibayaal mar kale. Magaciisa saddexani wuxuu ahaa Muammar Maxamed Cabdisalaam Qadaafi. Wuxuu ahaa siyaasi reer Liibiya ah, wuxuuna xukumayay in ka badan 42 sannadood Liibiya. Wuxuu dhashay 7 Juun 1942. Wuxuu ku dhashay tuulo la dhaho Jahannamo oo ka tirsan gobolka Sirrat. Reerkiisu waxay ahaayeen reer baadiye. Sidee buu ku samayn karaa dawlad? Wiil aabihii ahaa beeraley isna ku soo barbaaray beerta aabihii. Laakiin shakhsigan aan ka hadlayno taariikhdiisa wuxuu awooday inuu sameeyo dawlad quwad leh. Intii u dhaxaysay 1956 ilaa 1961, wuxuu ku dhameeyay waxbarashadiisii aasaasiga ahayd, wuxuuna waxbarashada la qaatay saaxiibadiisii xudunta siyaasadeed u ahaa. Qadaafi wuxuu ku barbaaray gobolka Sirrat. Waxbarashadiisii wuxuu ku soo qaatay magaalada Subha. Intaa kadib wuxuu jaamacad u tegay magaalada Benghazi, laakiin ma uusan dhammaysan waxbarashadiisii oo wuxuu ku biiray ciidanka. Yaraantiisii wuxuu aad ula dhacsanaa hogaamiyihii Masar ee Jamaal Cabdinaasir, wuxuuna qayb ka ahaa Qadaafi mudaharaadyo isdaba joog ah oo lagaga soo horjeeday weerarkii lagu qaaday Masar. Sanadkii 1965 waxaa loo qaaday tababar ciidan oo uu ku soo qaadanayay dalka Ingiriiska. Wuxuu ahaa taliye ciidan ka hor intii uusan noqon madaxweynaha dalka Liibiya. Wuxuu siyaasadda soo bilaabay isagoo aad u yar, balse wuxuu ahaa askari mayal adag. Wuxuu sameeyay koox militari ah oo markaa halabsanayay inay afgembi ku sameeyaan boqortooyadii lagu magacaabi jiray Senussi. Sanadkii 1964 waa markii ay sameeyeen kooxdii militariga ahayd ee loogu talagalay inay afgembiga fuliyaan. 1 Sebtembar 1969 waxaa Liibiya ka dhacay afgembi militari, kaas oo xilka laga qaaday boqorkii waddanka Liibiya. Markii uu Qadaafi qabtay talada waddanka wuxuu u sheegay dadweynihii inuu u adeegi doono dadka. Sidoo kale ka hor intii aanu dhicin afgembigu wuxuu ahaa kabtan, balse afgembiga kadib wuxuu isu dalacsiiyey korneyl. Ugu horreynba wuxuu wax ka qabtay dhanka cadaaladda, sidoo kalena wuxuu danaynayay shidaalka. Sidaa daraaddeed baa 1950 waxaa laga helay Liibiya kayd shidaal oo weyn, oo sida taariikhda ka muuqataba ay ka horreeyeen heshiisyadiisu madaxweynaha iminka talada qabtay. balse wuxuu ku wargeliyay haddii aan dib looga wada xaajoonin shidaalka oo aan la qaadan amarada dawladdiisa inuu xidhi doono. Shidaalkan waxaa aad uga faa'iidaysan jiray dalalka reer galbeedka, balse durbaba wuxuu bilaabay inuu u quusguuyo. waxyaalaha uu caanka ku ahaa waxaa ka mid ahaa inuu taageeri jiray Jamaal Cabdinaasir iyo inuu jeclaa isdhexgalka dowladaha Carabta iyo sidoo kale inuu Carab u diri jiray baaqiyo adag oo ka hadlaya midnimada. Sanadkii 1976 waa markii uu daabacay buuggiisii cagaarnaa. Xiriirkii uu la lahaa dowladaha reer galbeedku wuxuu ku bilowday isku dhacyo, taasoo ka timi hadalladiisa adag iyagoo ku tilmaamay inuu argagixiso yahay. Maraykanku sanadkii 1988 diyaaradii Pan American Airlines oo ku burburtay Scotland ayay ku eedeeyeen soo ridideeda Liibiya, iyadoo ay ku dhinteen 259 qof. Sidaa daraaddeed Maraykanku wuxuu xayiraad dhaqaale saaray Liibiya 1992
Si kastaba ha noqotee, waxaa la soo celiyey 2003 xiriirka labada dal kadib markii ay Liibiya bixisay lacag magdhow ah oo dhan $2.7 bilyan oo doolarka Mareykanka. Sidoo kale, Mareykanku Liibiya wuxuu siiyey feelal muhiim ah oo ku saabsan xogta nukliyeerka. Sanadkii 2003 ayuuna cunaqabatayntii ka qaaday. Qadaafi waxa uu mar walba ka soo horjeeday ciddii ka soo horjeesata, iyada oo dowlado badan oo Carab ah iyo kuwa Afrikaan ahiba ay ka soo horjeedeen, balse Qadaafi wuxuu rasaas ku xaliyey ciddii ka soo horjeesataba, sidii ka dhacday 1996 xabsigii Abu Saliim. In ka badan 1200 oo maxbuus ayaa lagu toogtay. Qadaafi wuxuu caan ku ahaa jacaylka dumarka, wuxuuna guursaday 2 xaas. Sidoo kale waxay ilaaladiisu ahaayeen dumar. Sidoo kale waxa uu lahaa kalkaaliso reer Ukraine ah. Xaaskiisii ugu horreysay waxa ay ahayd macallin iskuul, waxayna kala tageen 6 bilood kadib markii ay isguursadeen, waxayna u dhashay wiil la dhaho Mohammed. Xaaskiisii labaad, Safiya al-Qadaafi, oo ahayd kalkaaliso caafimaad, waxay u dhashay 7 carruur ah. Haddaba Qadaafi waxaan agtiisa laga waayi jirin dumar badan oo taageerayaal ah. Si kastaba ha noqotee, waxaa la sheegaa dumarka ilaalinaya inuu ku xiran jiray inay ahaadaan bikro. Sidoo kalena waxaa la siin jiray tababar adag oo militari. Qadaafi wuxuu ku fakarayay inuu tababaro haweenka quruxda badan, isagoo u xiri jiray kaba soo jiidasho leh. Arrinkani haddaba wuxuu ka soo horjeedaa diinteenna suuban, laakiinse Qadaafi arrinkaa dheg jalaq uma siin. Sidoo kale, dumarkii ilaaladiisa ahaa waxay sheegeen in Qadaafi askartiisu ay dhibaateyn jireen. Si kastaba ha noqotee, Muammar al-Qadaafi sanadkii 2009 mar uu booqday dalka Talyaaniga, waxaa ku soo dhoweeyey in ka badan 500 oo gabdhood oo qurqurux badan oo ka soo jeeday Talyaaniga, iyaga oo uu sameeyey casho sharaf. Intaa kadib wuu u khudbadeeyay hablihii, isagoo ku dhiirigeliyey inay soo galaan diinta Islaamka, isagoo siiyey nuqul ka mid ah buuggiisii cagaarnaa. Sidoo kale, xogo dambe ayaa qeexaya in dumarkii ilaalin jiray qaybo ka mid ah lagula kacay falal xunxun. Si kastaba ha noqotee, xukunkii Qadaafi wuxuu u jeestay gees kale. 10 sano oo xukun ah iyo musuqmaasuq badan oo lagu eedeeyey xubno ka tirsan qoyskiisa, luminta awoodda dalka iyo caburinta xurriyadda. Dadka reer Liibiya waxay sameeyeen kacdoon, kaasoo dhacay 17 Febraayo 2011, iyagoo shacab weynuhu ku baaqaya inuu Korneyl Qadaafi ka dego xilka madaxtinimada. Isla markiiba kacdoonku wuxuu isu beddelay kooxo hubaysan. Qadaafi gutooyinkiisii militariguna waxay kaga jawaabeen xabad nool. Isaga oo colaadda kacdoonka dhexda uga jiray, ayuu haddana wuxuu ku adkaystay inuu sii xukumo Liibiya. Dadka kacdoonka wadana wuxuu ku eedeeyey inay yihiin dad ay ku adeeganayaan reer galbeedku. 27 Juun 2011 ayaa amar ka soo baxay maxkamadda caalamiga ah lagu eedeeyey in Qadaafi iyo wiilkiisa Sayful Islaam iyo sidoo kale taliyihii sirdoonkaba ay galeen dembiyo dagaal, muhiimna ay tahay in la soo xidho. Ugu dambeyn, Muammar al-Qadaafi waxaa la dilay 20 Oktoobar 2011 iyadoo si qarsoodi ah lagu dilay. Madaxda qayb ayaa jira intay wax qabtaan, balse wixii ay qabteenba aysan iyaga ka dambayn. Xaaladda Liibiya ayaa maantadan aynu taagannahay aan ahayn sidii hore. Muuqaalkeenna maantana halkaas ayaan ku soo afmeeraynaa. Intaan muuqaalkan ka xiiso badan ku kulmayno, sidaa iyo nabadgelyo.